bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti habboon saaxiibadaynugu xidhanow halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan youtube-ka ku leenahay runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo ciidamadii ugu badnaa u diraya gobolka gado hogaana uga dhigaya taliya biixi sheekh shariif oo fariin u diray hay-adaha ammaanka kadib qaraxyadii shalay ka dhacay beledweyne iyo boosaaso iyo guddiga doorashooyinka oo shaaciyey in lagala wareegay bariha bulshada qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadaynugu xidhan oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis laydinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo soo adhaan like-na nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhaca warkayga ba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ciidamadii ugu badnaa u diraya gobolka gado hogaana uga dhigaya taliyaha ciidamada dhulka maxamed tahliil biixi sida uu ogaaday runsheeg t v taliyaha ciidamada dhulka soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa ku wajahan magaalada garbahare ee caasimada gobolka gado isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo biixi oo kamid ah saraakiisha aadka ugu dhow madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaan la sii ogeyn qorshaha safarkiisa garbaharey balse warar laga helayo safarkiisa ayaa tilmaamaya inuu halkaasi u tegayo doorashada iyo arrimaha oo halkaasi si ciidamada amniga ay halkaasi uga sugaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa la qorsheynayaa inay sugi doonaan amniga doorashada kuraasta taalla garbahare inkasta oo buuq ka jiro qabashada doorashadaasi balse ciidamada uu hogaaminayo taliya biixi ayaa la aaminsan yahay inay fududeyn doonaan in halkaasi doorasho lagu qabto taliya biixi ayaa warar lagu kalsoon yahay oo helay runsheeg t v waxa ay sheegayaan inuu u sharaxan yahay kursiga sumadiisu tahay hob 110 waxaana 5 sano la soo dhaafay ku fadhisay xildhibaanad sagal cabdirasaaq biixi qondo ahaan kursigan waxa uu ahaa mid dumar kaliya loo xiri jiray balse hadda waxa uu muuqdaa mid rag iyo dumarba lagu wada tartami doono maadaama hadda uu damac kaga jiro taliya biixi villa Soomaaliya ayaa jenaraal maxamed tahliil biixi ka taageeri doonta inuu helo kursiga golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay garbaharey waxaana haddii uu ku guuleysto qayb ka noqon doonaa saraakiisha ciidamada oo sanadkan baarlamaanka 11aad qayb ka noqonaysa jenaraal maxamed tahliil biixi oo arrimaha ciidamada ku soo jiray ilaa dowladii kacaanka ayaa dadka yaqaana waxay ku tilmaamaa mid wadaniyad leh isla markaana dagaal gelin kara abaabulka weerarada ciidanada qaadi kara kuna caanbaxay xiisada khilaafka ayaa mar kale soo cusboonaatay kadib markii Kismaayo ay ku kulmeen siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin xubno ka Jubbaland oo ka soo jeeda gobolkaasi waxa uu sheegeen inaysan suuragal ahayn in Garbahare lagu qabto doorasho xor iyo xalaal ah sida ay hadalka u dhigan madaxweyne farmaajo oo kooxdiisa nabad iyo nolol ayaa dadaalka soo geynaya si ay kuraasaasi ugu guuleystaan ujeedada ugu weyn ay tahay in 16 kursi aysan dhinac u dhaafin khilaafka Jubbaland iyo maamulka garabka ka helaya madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo la xiriira hab maamulka goboladaas ayaa soo jiitamay tan iyo 2018 iyadoo oo marba uu heer soo mariyay kaasoo xilliga qaar doodiisu saameyn xoogan ku lahayd shirarka doorashooyinka haddase waxa uu muuqdaa mid dhinac u dhacay maadaama 16 kursiba aysan dhinac u dhaafayn hogaanka dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa fariin u diray hay-adaha ammaanka kadib qaraxyadii ka dhacay ee shalay magaalooyinka boosaaso iyo beledweyne madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay qaraxyadii midaaminta shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle isagoo fariin u diray hay-adaha amniga sheekh shariif ayaa marka hore u diray dhammaan ehelada dadkii isugu jiray shacabka iyo mas'uuliyiinta ee ku dhintay qaraxa lala beegsaday waxaana alla caafimaad uga bariyay in uu siiyo dadkii dhaawacmay oo xaaladooda la dabiibayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay qaraxyada lala beegsaday goobaha ay isugu yimaadaan bulshada isagoo laamaha amniga dalka inay xoojiyaan amniga dalka gaar ahaan magaalooyinka
ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka. aad ayaan uga xumahay qaraxyadii argagixisadu la beegsadeen goobaha bulshada. waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga dalka meel walbo ay joogaan xilligan in ay xoojiyaan xaqiijinta amniga guud ahaan, gaar ahaan magaalooyinka doorashooyinku ka socdaan, ayuu yiri Sheekh Shariif oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta. inta la xaqiijiyay 13 qof ayaa ku dhimatay qaraxa ismiidaaminta shalay ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan maqaayadda Xasan Dhiif ee ku taala magaalada Beledweyne. 30 qof oo kale waxay ku dhaawacmeen qaraxa. Al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi dhacay. labada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah guddiga doorashada ayaa shaaciyay in lagala wareegay barihii bulshada ay ku lahaayeen. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa mar kale shaaciyay in lagala wareegay gacan ku haynta maamulka barihii bulshada ay isticmaali jireen guddiga sida website-ka, Facebook iyo Twitter-ka. warqad ka soo baxday guddiga isla markaana uu ku saxiixnaa gudoomiyaha guddiga Muuse Geele ayaa lagu sheegay in guddigu ku wargeliyay inta danaynaysa doorashada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagala wareegay barihii bulshada ee guddiga ayaa sidoo kale shaaciyay ama shaaca ka qaaday in tani ay muujinayso mas'uuliyad darro aad u weyn iyo tallaabooyin lagu carqaladeynayo hanaanka doorashada. tallaabadan lagu la wareegay dhammaan baraha bulshada guddiga waxay muujinaysaa mas'uuliyad darro iyo carqaladeyn lagu hayo doorashada ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale qoraalka guddiga ayaa intaasi ku sii daray, haddaba waxaan cadeynaynaa in wixii la soo galiyay inta dib loo soo celinayo ay yihiin waxba kama jiraan. ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka dadban ayaa shaaca ka qaaday inay haatan wixii ka dambeeya macluumaadka doorashada kusoo gudbin doonaan shirar jaraa'id iyo waraysiyo. xogayaha amaba xogaha doorashada waxaan kusoo gudbin doonaa shirar jaraa'id, waraysiyo iyo wixii la mid ayuu mar kale lagu yiri qoraalka. warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka dalka. qoraalka ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray gudoomiyaha guddiga Muuse Geele, Mawlid Mataan Salaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga, iyo Cabdikariin Cabdicasiis Aadan oo ah xogayaha guddiga doorashooyinka. waxayna taasi muujinaysaa in guddiga dhexdiisa ay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa xubnaha guddiga fiid ee doorashooyinka dalka. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah xukuumadda Soomaaliya ayaa amisom kala hadashay madaxda iyo siyaasiyiinta hubka la gelaya garoonka Aadan Cabdi. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta axada la kulmay danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mandera. ugu horeyn danjira Mandera iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay amniga garoonka Aadan Cabdi, iyadoo wasiir Duraan uu hore u soo jeediyay in sharci laga soo saarayo gaadiidka tiknikada ah ee lala geliyo garoonka. docda kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa danjiraha midowga Afrika kala hadlay dejinta dhismaha baakinka gaadiidka oo dhawaan la dhagax dhigay. hirgelinta baarkinkan cusub ee garoonka Aadan Cabdulle ayaa soo kordhinaya yareynta saxmadda gaadiidka ay ka sameynayaan wadooyinka laga galo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi. kulankan dhex maray wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Axmed Faarax iyo danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mandera ayaa daba socday kadib markii dhawaan garoonka in ay galaan laga celiyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hub fara badan iyo gaadiid ay wateen. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna warkaad ka daawanaysa Runshack TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaa subscribe noo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambalaalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.